وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي كان قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي كان ديدي هوشتالي كان لعب كتور سنو وحكستا ودقاتو وديك شري دحدي سالي haddana waxaan u yeedhayaa waqtigoo inagu gaaban nin isaguna ka mida odayaasha magaalada Jidda oo aan jeclahay inuu halkan isna kelmada ka yidhaahdo waa Maxamed Cali Caadle. Maxamed soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلك على نهجه واتبع بسنته إلى يوم الدين وبعد بغرك xildhibaanada diblomaasiyiinta odayaasha dhaqanka culimada bahda saxaafadda dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda tan sharafta badan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ragga soo agaasimay xafladda tan qiimaha badan ee lagu soo dhaweynayo boqorkeenna waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin tallaabta aad qaadeen intaa ka bacdi boqor burhaan waxaan leenahay soo dhawaaw waxaa halkan fadhiya waa ummadda Soomaaliyeed waxay u yimaadeen oo ay maaragtay u soo diyaar garoobeen soo dhaweyntaada waa jaaliyadii deganeeda halkan oo taariikhda dheereeday raggeeri mas'uuliyiinta ay madaxda u ahay waxay u fadhiyaan inay ku soo dhaweeyaan tawjiihaadkaaga iyo awaamirta adiga aad siinaysana ay dhageystaan xoogoo masaaj ana ay ku sii dhiibaan xoogoo waa jeclaalahay ragga xiriiriyaalka meesha ay leeyihiin hebel siyaasadu galay waxaan waa isku wada xiran yihiin boqorku ma ahan oda dhaqan kaliya waa nin siyaasiya waa nin dhalinyaro ah waa nin mutacalima waa nin muftaax yani meel kastaba fura ah waa nin ummadda dhexdeeda qiimo ku leh dhibaatada waxa maanta ay naga haysatana ma ahan dhaqanka ma ahan dhibaatada meesha ay naga haysato waa siyaasadda ragga la raba inay wax ka qabtaan oo maaragtay asaga ayaa ugu horeeya marka waxaan leenahay maadaama hal gala yaan la geeyay maadaama la geeymayna waxaan leenahay boqoroo meesha aan leenahay waa siyaasadda adiga iyo dadka kulamida una furfuran dhalinyaradana u ah aqoontana leh yaan waxaan ka rabnaa inay ummadda Soomaaliyeed dib u abaabulaan
dhibaatada iyo mashaakilka siyaasadeed oo ku jirtana ay ka bixiyaan insha allahu tacaala. ma qabno dhibaato dhaqanna ma hayso, meesha ay naga hayso waa siyaasadda. marka aad ayaad u mahadsan tahay, ma rabo in aan galo maadaama layriyaan la gelin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي